الله يشيء حالة سمارتين ميل في عن مريسو مركا وحن اللي شارع هار أولر فروة ياي هتر سياد إسماعيل وياي أورجانيسك ستات بروكسكوب ستات سبورجر إنورجا تلدن النشكا إمبسادن أديس أبابا إثيوبيا بيو بوكس كاسلة 33 أديس أبابا تليفون نمبر صون إيميل صون وياي نفر النشكا ميدي هتر سم دن النشك إمبسادن إثيوبيا أو utenrist departementet i Norge. Jeg vil å informere regjeringen om at en norsk kvinne heter hun Saadiya Ali Sahel, og hun har eieren av Sahel Hotel i Jigjiga. Ligger Somali-regionen i Ethiopia. Kvinnen Oller Saadiya ble arrestert og fengslet for å ha leid et hotell til personer Oller mellom of den etiopiske somalisk abisasjonen det ikke feil av denne hotellen virker som å være åpne for publikum og spore hvorfor du leier denne ut. Den norske regjeringen anbefaler at disse borgere løslates så snart som mulig, og de nytter friheten. Saadiya den har blitt og misbruk, og hun har blitt og behandlingen videre streit og med etiopiske loven, og det en klar aggresjon. Marka weeshan waxay ku dhahdeen yaay har mootadan har saakan til Saadiya Ali Sahel oo kontakta manga bashonar familial medlemmer eller noen har nedre grupper eller han vanlige personer, og det så snart som mulig det får rettigheten og saken ligger i ambassade i Addis Ababa, og det ligger også saken din du sendt og fra nevnet din som har organiske organisasjoner fra Norge, og det greit, og takk skal du ha beegud hadeen. Marka waxa weeyaan waxaan rabaa Saadiya ma garanayay muxuu kiiskeedii oo safaaradda ayaan u diray aniga oo muxuu ahaayay gudoomiyaha muxuu ahaa Scandinavianka ururka OYSU oo xubinkiis oo muxuu maqarkiisu yahay muxuu ahaayay magaalada Tromso. وانا قد بيو أركاس محو هاي جوابتني ويسوسيين واحد هذين قبلنا كيس كذي دوحنا الله سوها الله حمنا بدن هاي قوس كم ذا يضفر بدن أو مارتي مخراتيها يوم محو هاي الرف ربنا مدكم واحد يشيجين وحيلا فربنا السر وقال كان كشيء كريم أو وحيلا مو على هذا محو هاي اللي هذا هم اللي هات بليا سكرت هم اللي هات سكرت هم اللي هات وحيلا واحد كذا قاريو أو قرصون waxaan ay sheegay markaa ikhtisaaska meeshan maartay loo diray qayb waxa jirtay safaarka shaqeysa oo wasaaradda arrimaha dibadda oo lawyer marka wixii lawyer kaas loo dirayna muxuu ahaayay wayna galayaan marka safaaradda Norway waxa weyn hawshaasi waxbay ka qabanaysaa wayna maartay gabadhaas maartay muwaadinada way u hiilinayaan sidoo oo kale muxuu ahaa imika waxa jiray kiis waxa jiray imika ka dhacay magaalada Hargeysa nin maartay u dhashay ma garanayo Soomaaliya kula u dhashay dalka Soomaaliya sanadkii hore ma garanaysa qof buu ku buufiyay tuug baadhii wuxuu ku buufiyay baasha dadka maartay indhaha ilmeysiisa ninkii wuu dhintay wuu xiran yahay odagaasina marka safaaradda maartay kulli Kenya bay ka yimaadeen malmaynaya safiirku jooga ama qonsulka ama nin maartay looyarada ee dawladda la shaqeeya ninkaasna wax weey hadda la soo deynaya gabadhana wax weey dambi ma leh cid ma idil waxbana ma idilin gabadh iska ganacsata oo iska xamaalata oo iska xoogsanaysa bay ahayd gartaraan lagu xiray cad oo meel lagu soo gabday jirin wax weey xorriyadda u helaysaa dhawaan waxaan u rajaynayaa insha Allah Saadiya inay maartay ay jalka ka soo bixi doonto oo maartay hantideedii wixii la wareegi doonto waxyaabo fara badan oo la wadaagnay in maartay guriga rabo in maartay la nashqadeeyo oo dad isticmaalaan oo saas waxa ka jiraan baa igu dhaadeen dukumentiyada dhan baan haynaa nidaam baan jirin naga dhaxeeya dawladda Ethiopia dadka maartay jinsiyadeeda haysta wadankoodii yimid oo gooni arintana way horena waan u haynay macluumaadkan marka kulli si uu fiican baa dawladda la hadashay
waxaan aaminsanahay arrintaas inay wax fara badan ka soo bixi doonaan insha Allah bidin Allah taala arrinta gabadhaas magaceedii waan u ducaynaynaa taas waa taas ariyaro kalena waxaan rabaa ku misdheeraanayo waxaan soo qabanaya muxuu ahaa Cabdirasaaq aadan soo qabso ariyaro kale waxaan rabaa inaan ka hadlo iyadana gabadh iyadana waxaan baraha bulshada ku arkay maanta u dhalatay gobolka Ogaadeniya gaar ahaan u dhalatay muxuu ahaayay si la sheegay degmada Garbo gobolka Nagab marka gabadhaasi kulli dabcan wali arkaynay meesha wax ka jiray muxuu ahaayay gabadhaasi kulli waxay say maartay ku andacoonayay runtii iyadoo aad iyo aad u ooysa baraha bulshada ka arkaynay ayaan Cabdiwali وانا قبل مقرنة سأورتي محور جمهورية أوغادينيا لهايستو مارتي كوتشرت محور هاي احتلال تحت سيطرة إثيوبيا محور هاي ومارتي كبرس كلي وهيل دون تحرير لفت جدو محل وحي أي حقي حقولا وهيل دون تا وحنا آدي أدو حلوة حماضة وحويا صومالي ذو سنت الصوماليات ويسكونوا شيء ولا يسكونوا ذنولي هاي وحويا قبرنا سميد كلا يجا عيار علي ساق بعض علي ساقنا وي ودحضي وين الآن وين كل رتي المركب وحيلا فربان برضو ده وحوي دولدن محيي محوها جمهورية مدح بنانية إسكاد وواقعي ورطلا ما اعتراف صنبا ودوكيمنت كذا يوحد يوحد تجربة ما وهبا لكن وحيلا فربان وحد كذا مارتي قبل وحيلا وقبعتي أما وقبعتي محوها أيان عبدولي ده إن لورد ما يحيد ده وحبها تمكرتي مدام عروها يسوع إما كانوا كوفر بدنا واحد كذا أنا قمنا بيشروا ساقة ودقة محي هيدي أنا قبلك تشرر بنكسو كذا ودقة باسبور إثيوبياني هايستان باسبور أوغاديني هايستان وحول بيست عودي ده مشتو عدا يسمشت أباها ككن محوها هاي هرجيس ككن أما ككن محوها هاي سوماليلاند ككن أو أباها كان هاي مادو تعدنا مرة هايسو سومالي دون نقني عادي لنا هاي ناقول برهيرك يقول لحظة بيت هاي ما حضرت كله إنه رقم بين لنا جوني gabadhuna waxaad mooyisay inay ka hadlayso maartay si qof dal aan dalkeedii ahayn ku nool maartay la abiyusay oo waxa confuse oo isku aad isku foosanay gabadha maxay ayaan muxuu Cabdiwali wallahi aad baan uga naxay waxyaalo waxa jira ma garanaysaa bil aadanimada humanitarian assistance ka baxsan baa jira oo qaladaada marka waxa weeyaan kulli arrinkaana wax way bulshadu way ka hadli kartaa ku nool muxuu ahaayay gobolka muxuu ahaayay Hargeysa برد جاح مدهان مارتي ويكال ذكران وين شيء وين مارت أنا وين كوحين كرتا وين كال ذكران اللي لو مركز لو عضي فضي يقول لي أباها بكسوت شيء ذا محاي قبل كواديني أما اسمه مركز كلك الصومالي كسوت شيء ذا مدام هالكن هذا كله راتي وح مارتي شرعي وكملي هيد مارتي كوي عرض ورشة ويكودمينه وين تطبق كل عكران هذا كتير وحلاقيه وذكي إني مارتي عرض راتي وحلاقيه بيني مارتي كل عين وحيلا بس كذا عكران مركز وحويان arrimahaas waa arrimo maartay wallahi maartay waa arrin aad iyo aad maartay looga xumaado gabadha social media ku ooysay walaasheena waana maartay xaraam weeyaan waxa isku maartay lagu dhaqmo wanimayo waxaan sheegay saaqow weyn isnaqaana wiilyaabtiga baynu nahay dalkayaga degantihiin imika dalkayaga ay degantihiin gaashaamaha degantihiin meelo far badan baa degantihiin kuwa badan oo Hargeysa ka yimaada maxay haday burco ka yimaada oo ka yimaada maartay carlada isaaqa ka yimaada meelaha degan dhan baa inta ka yimaadaan bay baasboor qaataan oo ay ku qaataan maxay haday deegaamadeedan ay ku qaataan وانا wax maartay cid wax tiraahdan ma way iska qaataan imika dal baan ku noolahay Scandinavian-ka la yiraahdo dad fara badan baa magacayga sheegta adan hay ogaadeen imika maartay ogaadeen bal lagu cusfiriyeeyay kuwa fara badan oo imika Scandinavian ku nool dalkan ku nool Norway degan baa jira oo baasaboor ka qaata oo ku qaata sifa ku qaata inaan ahay ka imid gobolka Jarar inaan ka imid gobolka Nagab inaan ka imid gobolka Qabridaare wayna joogaan halkan joogaan dawladda dawladda imika immigration u sheegay oo naagtan aabbeeda kama soo jeedo وأنا كره لكن مرة بنو وحموك تدخل الناس كعيشان بافيعن لكن قبل وابد الشيء وإحنا وين الشباب وين كلنا تمشي مرك حقي حقوق إلى لحاته بحق بيقولها الوحي أو بهانت مركها أنا ما بأمزني مجلس إن واحد شرعي أو فراء كجلس فينجر برينت أي كجلس فراء أما مارت شرعي أو بهانت هاي أو ميل لقطة أما الأقونسية هي ما بحبا دولد ما الأقونسية ما بحبا ودايما الصومالي وكل إثيوبيا وكل كينيا وكل هوا دول الأقونسية لكن ماشان مارت هيربايس كايستا ومارت أرد مارت وح مارت معها مارت دول الأقونسية معها marka laakiin si walba ha ahaatee
muxuu ahaayey dadku waan isnaqaanaa waan isgaranaynaa weliba haddaan maaragtay nahay maxamed sbeer waynu soo gaadhnaa waynu iska guursanaa marka waxa weeyaan inaad sheekada noola timaadaan ma aha qalad weeyaan waa arrinta aniga shakhsi ahaan aad iyo aad baan u dhaliilayaa waana ka soo horjeedaa insha allah gabadhaasna waxaan u rajaynayaa adeeray muxuu ahaa xaqaagii waad heli doontaa dal baad leedahay welibana waxaan u sheegayaa muxuu ninka immigrationka haysta ka soo jeeda gobolka City ka soo jeeda Elya Maxamed Gaab la yiraahdo immigration bardhow ina Mustafa Cashar keenay waxaan u sheegayaa in gabadhaas waa gabadh u dhalatay dalka Ogaadeenaya kuwa imanaya ee lacag ka qaadaan ee baasaboorkayga qaadanaya ee ku qaadanaya tulooyinka ay noo dhalan ku qaadanaya ee lacag ka qaadanaysaan ma siin kartaan qalad weeyaan kuwa wadanka u dhashay wadanka ay degan yihiin ay dhaleen maartay u dhaxeen baasaa maanta loo bahdilaya oo social media ka hadlaysa ninkaana si wana haya muxuu ahaa facebookisa si khaas ah waan ugu diraya arrintaasna waxa weeyaan bulshada ku dhaqan Hargeysa waa inay ka falceliyaan sida warsaha badan gabadhaas waa in arrinteeda laga hadlaa hadii laga hadli waayo arrinta meel xun bay gaaraysaa haddii aad gabadhayada maartay aad meel xun taabateen wallahi diikna meel xun taabanayna wali aan shakhsiyan wallahi in aqoonyahan oo cilmi labaanahay wax badan baan ogahay meel xun baan taabanaya wallahi arrintaasna maartay waan kal doona hadda waxaan soo qabanaya Cabdirasaaq baan soo qabanaya Cabdirasaaq aad يا أقويان وبهيا والله وحويان ظلمك وحراوين إلا استلميو إلهي موقلا ظلمك وحراوين والله قبل اللي أنت كده عايز أبنا ونحي السلام عليكم عبد السلام أهلا بكم سلام يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم سلام كما مغلو والله كما مغلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما مغلو كما مغلو هي هذا اللي يوم مغلو هبك يا يبا أنا ما مغشى أنا آدم كو مغلا ها هذا حقا هي أنا آدم كو مغلا هذه إيه مغلا هذه وكا إمكان كو مغلا عدك غير وقاد عبد الرزاق هذه أدم كو سنويني عبد الرزاق waxaan rabnay inaan ka hadalno xaaladaha ka taagan muxuu ahaayay bariga muxuu ahaayay Ethiopia iyo muxuu ahaa bariyahan maartay dhibaatada fara badan ka taagan dalka Ogaadeenaya iyo maartay gaar ahaan magaalada Jigjiga oo la isku caarsanayo oo waxa weeyaan madaxa la isku jiro muxuu ahaa waxaan rabaa markaa inaad wax yar ka taabato kullu soo akhrido almaanaya ciwaanka ku soo dhawow aad iyo aad baan ku wata ninkan baadii sheegay Cabdirasaaq aadag waa nin jabhada dalka maartay u soo dagaalamay u soo halgamay naftii quraa muxuu ahaa haddana mas'uuliyiinta maartay ku sugan dalka Mareykanka jaaliyada muxuu ahaayay marka waana nin maxalli oo siyaasiya waxyaalo fara badan falaqeeya ku soo dhawow Cabdirasaaq fadal هذا وانكم مغلا xogaa ka ergo go'aya laakiin la maqla si fiican waa lagu maqlaa ha haye سيادو وفعي هذا وفعي كسعو ها مقل هذا وريا سوما سيف على سيف عقبله ها بسم الله الرحمن الرحيم الله يسمع لها والله مغلاب سلام هيا هذه انت ماشي كنت جرتها والسلام يا هداي مقليسان مقرن كيف يعني اد بان كوسل وين اد بان كوسل واكم مقاسيف عم اقوم مقلا وقدر بقشر ها سوق وريا ايه arrinta ka hadlaysid gabadha waxaan leenahay dee ku sii dheeraan mayne macnaha arrinta gabadha iyada waxaan leenahay dee dadka ay dhex joogtay ama ummadaas ay ka mid ka ahayd ay dhex joogtee intaasoo sano ka tirsanayd ee u ilma dhashay bay wax la qabaysaa hadday ka weydana haddee waxay waxa weeye ilaahay ay ka rajaynaysa weeyo si kale u heli doontaa insha allah bidni alkariim marka taas wax intaa u dhaafi maayo
حي صح ها haddaan ku weecdo arrimaha ka taagan deegaankeenii ama jigjiga hadda beryahan dambe laga soo sheegahayana اه waa arrin u baahan in dhaqan khaldan baa ka jira dhaqankaa khaldan in la toosiyo dadku waxaad moodaa sidii dawladda iyagu soo doorteenoo ayaga ka turjumi karta inay eedaynayaan baad moodaysaa laakiin xaqiiqda way ka fog tahay dawlad marka صح wakiil ahoo gumaysigii meeshaa haystay wakiil u ah ayay waxay u canaayaan ama u eedaysanayaan sidii dawladda iyagu leeyihiin oo iyagu doorteen oo kale صح taas waxaan dhihi lahaa dadku fikirkooda maskaxdooda ha ka bedelaan ayagoo ku salaynhaya jirta xun abaartaasaa wax walba loo abaarta ilaahay baa keenay laakiin wixii looga gudbi lahaa ama lagaga badbaadi lahaa caqligeedii iyo dhaqankeedii midna lalama imaan صح maxaa jira فهي سعوي سيف عبا كوم قلا كسعود ايه هذه حقا وين اي يربا كخبا كجرا اي يربا كجرا لكن واد فيعنتي ايه waxaan kaloo rabaa inaan sheego abaartaas ilaahay horta dadka balhaka ilaahay roob ha uga siiyo roob la'aan baa jirtee hadda waxyaalo yar yar baa horeen maqlab khayr qaba abaartaas ha uga keeno dadka صح midda labaad dadku hadday noloshu wax maamul keliya ama qof keliya keeni kara maaha صح wax cid ugu keenayso cid ugu daban qaadi kartana maaha abaartaasoo صح kala hadda tusaale u ah waxaa tusaale u ah hadda maanta xadhiggan la isyaryanayo jirjige hoteelada la gelahayo ee meel walba la samaynhayo dadka caqligii iyo dhaqankii inuu ka lunsan yahay arrintaasoo dhan baa tusaale cad ku ah صح marka arrintaas صح tusaale ahaan hadda geel curadiisii durdursa arrinkiisa maxaad moodaa meel odaygeedii aamusan yahay biidhiqaato iska yahayoo hadduu suldaan sheeganhayaba odaygii meel uu waxa weeye kol waxa weeye meel hebla adhisaaba noogu imow laleeyahay waa inkaaro halkaasay naga dhacay صح waxaa kaloo jirta si macnawiyan oo badan baa laynoo gumaysaateeyaa hadda waxaa jira xuduudka soomaaliya dagaallo badan oo dhulriix ku salaysan oo dhulkii luu soo riixayo oo degmooyinkii iyo aagaggii meelo ka mid a in dhulriix ka jiro oo maanta dagaallo iyo is-eedaymihi waxaas ay ka soo baxayaan baa jirta ma garan si fiican dhulriix iyo dhibaatada taagan in sidaas loola socdo la ogaado weeye wax dawlada wax ka qabanaysa iyo صح اول بيننا اسكعل اول بالشعب كان يسكعل جري وحدوده دافعان جري اول شعب كينا waxa weeye hadii qof bastoolad wadan kara ma jirtaa lagu yiri Soomaaliya iyaga laftoodii baa yaa la gumeeyay qalad weeye waxaasi qalad inaa aqbalaan ma waa inay xuduudooda difaacdaan oo min bari iyo min galbeed iyo min waqooyi baa iska maartay ay dhulkooda ilaashadaan weyn oo lagu soo siqin waxaan arkay niman xoogyo oo arkayba dhulka ku soo siqin arkayba oo lahaa meel sheeganayba wax dad aan adeer gidin iyo waxana shaqaba isku ay baa sheeganayo la dhulka anaga walaal lahaa waa ka soco waa gartay ها marka cid walba waa ku soo daansanaysaa cid walba waxay doontay kugu soo dayaysaa hadaa adigu tashan weydo wax badan oo صح waa gartay صح marka cabdirasaaq wuxuugaa niyo codkuna kaaga go'aya codku waa go'aya ma garanayo codkuna aad buu kaaga go'aya ma garanayo codkuna kaaga go'aya muxuu ahaayey
فالمر لو مقصوق قبتها بالمر لو مقصوق قبتها عبد الرزاق وعدك وقاقو يا مر لو مقصوق قبن انفستيجيشن عبد الرزاق مر لو بنكو علنيا عبد الرزاق هذا بالمر لو سوق قبسو خدك وحوغا كايرا حن بالمر لو سوق قبسو عبد الرزاق وحو كان لي نظام كان بي فاشل كأه waxa weeyaan imika waad aragtay ina cagjar iyo dadkii maartay xulafada ay ahaayeen waxa weeyaan shalay ay doorteen bay maanta ay garabkii BB ay ka soo horjeedaan ina cagjar shalayna iyaga ayaa dabada u luulayay daba ordayay waxa way u niikinay maantana iyagii bay ka soo horjeeda oo waxay leeyihiin ina cagjar annaga waxa weeyaan qaladaad badan buu leeyahay la badan buu leeyahay xisbiga BB waa in wax laga bedelaa bay hadda taagan yihiin shalayna wixii ay ku andacoonayeen waad arkayseen maartay ay daba ordayeen iyagoo ka fiirsanin ay madaxa la galeen maanta iyadii waa madaxa iskula jirta marka ninkan muxuu ahaa ina cagjarana dhibaato aad u fara badan ayaa waxa weeye waddanka uu ku hayaa dhibaato aad u faraha badan ay waddanka ku hayaa oo waxa weeye ninkani maanta waa waxa weeyaan cid la dagaalamaysa ma jirto jabhad maanta hubaysan oo xabad ku ridaysa ma jirto dad urur mucaarada oo ka soo horjeeda oo qalimaysan mooye mid qoriyaysan ma jiro waxa weeye dadkiina waxa weeyaan biduuni sabab buu ku xidhaya ku laynaya muxuu ahay ugu soo mamarsiyoonaya oo geel loogu soo aan waxaan geel loogu soo gabada aan ahayn arrintaasi waa arrin aad iyo aad maaragtay deegaankeena uga jirta weeye marka arrinkaana waxaa iska dulqaadi kara oo ka hadli kara in dadka maaragtay u dhashay maxay ahayd gobolka maaragtay ogaadeen u dhashay ama Somali State waxgaradka ah cuqaasha muxuu ahaayay iyo waxgaradka ayaa ka hadli kara oo arrinta ka dhigi kara iyo dhalinyarada wali waxaan u sheegayaa muxuu ahaay jarnaalka muxuu ahaay jarnaalshuunka soo koraya mustaqbalka waxa weeyaan dadka waxa weeyaan dadkii imika aan dadkii dhaxaan ahaa dadkii naga horeeyna waxa weeyaan way baadidan in dhibatay iyo in maartay iska daabay noqotay halganka iyaga ayaa looga baahan yahay inay gumaysiga iyo maartay iska dulqaadaan dhibaatada waddanka ka taagan dhalinyarta hadda waxa weeyaan deganay 9 gobol ee Somali State ama ogaadeen inuu soo yaqaano waxa ka jirta dhibaato aad u fara badan hadii la eego xaggii maartay shaqadii waxa la siinaya mudnaanta waxa la siinaya xabashi baa la siinaya xafiisyada xabashi waa fadhida qaybta caafimaadka xabashi waa fadhida meel xabashi waa fadhida dadkii dhalinyaradii dalka u dhashay ayaa waxay meesha ku noqdeen iyagiiba waxay ku noqdeen qoxoonti bay ku noqdeenba iyagiiba dulsaar ku noqday meesha oo noqdayba dad aan dalka lahayn bay noqdeen waana arrin aad iyo aad maartay dhibaatada inta leeg weyn oo aad maartay u dhib badan dadka dhalinyarada waxay noqdeen wax maartay dalkii ka cararay in maartay ka kacday oo ka dhidhido tii anagu sidan aqbali mayno dal xoraan u baahanahay waxaan u baahanahay maxay heelay wixii ay abeesho soo halgameen wixii aan maartay isbedelkii aan dooninay waxaan u baahanahay muxuu ahay imika imika for example haddana imika eegno Kenya wuxuu ahaa waddan wuxuu ahaa maartay colonialism baa haystay waxa haystay muxuu ahaayay gumaysi baa haystay oo ingiriiska gumaystay marka laakiin siyaasad ahaan marka ay tahay Kenya way ka ilbaxsan yihiin sababta oo gumaysigii haystay baa wax weeyaan ayaa wuxuu ahaa gumaysi garanaya sida dadka loola macaamilo iyo dadka aqoontiisa iyo maartay si maskaxda laga haysto laakiin noloshii iyo waxbarashadii ayaa lagu ogol yahay imika NFD inay way naga fiican tahay wadinka arkay wax weey wax buuq kama taagna wax qayli kama taagna dawladdu wax qof walba positionka uu taagan yahay aqoontiisa waxbarashadiisa ayuu wax ku helaya laakiin inaga imka waddankeena isbedel baa ka dhacay waxa la yidhi free baa tihiin xorriyad baa tihiin maxay baa tihiin dalkiina wax weeyaan waxba dalkiina waxba kama tihiin maanta haddii aan maanta shahaado degree aan haysto ama aan haysto muxuu ahaayey master haysto oo aan diyaariyey muxuu ahaayey health caafimaadkaan diyaariyey oo aan tago mudnaanta ani lama siinayo mudnaanta nin xabashi ah oo xitaa ingiriiskaan qori aqoon xamaari ku hadlaya baa mudnaanta la siinaya meesha la fadhiisinaya oo loogu xulanaya lacag yari Ethiopia waa ogtiin wax aqoon oo taala ma jirto wuxuu dhan waa fake nin maanta jaamacad ka soo qalin jabiyay oo aqoon leh oo tacliin leh oo maartay dhisan walaahayna soo gujay ma jiro waa been way waxa ilaahay wuxuu ka soo baxay dugsi hoose wuxuu ka soo baxay jaamacad wuxuu ka soo baxay
وانين محا برسفور هو ويان دور جامعة كسو قلن جبي وهو وح كجرا وإلهي أبورتي مجلس وكوبي مع كوبي وصور وحصل وعود اللي جتني يمكن دلوقتي فرب الله بايشتا ووحد اللي جتني هذا وياعي قارك سماي تجيان قار وحي تجيان ويسو تهريبين قار وحويان كينيا تجيان وياعيان لأنه وحوي قفل بحمي يقول مركي وماشي وسوق الربي ون حبشي ومناط للصينية وسوق ماشي والشقة هلا ينبع يا قار وحي شيء محاي ميل والبض قشو سنتر والبض أو بي جي بي محاي جي بي والبض قشو وحافظ كترسن أو ما كترسن أما قبلها كترسن نحبش يفرد وحبش كقرية مع ضلك مش لأن يرى سكان لأن يرتوح يحد إن لو فريحد مجال العمل إن لو فريحد محوها أي لسياح محوها أي سيمينار لسياح وحي إن لو سيمينار كورسين لو فريحد كورسين وحبرشة كورسين محوها أي أقومت كورسين محوها أي محوها لو إسلها أقونته ده وضلك يرتوح إن مارتي وحلو لو حياه ما فهمت لأن يرتوح حتى مشاكل أظفر بلان باهي ستا جرنالك سو كوريانا إلهي الله عب إلهي بليه marka waxa weeyaan gumaysi baan haystaa marka in cajarno wuxuu ku doodaya dadkan shaqo la'aan baa haysa ma amal ma hayaan amalkii ninka sameyn lahaa isagu ahaa dhalinyartan iyo dadka maaragtay jeedin lahaa wuxuu sameyn lahaa imika caal dowladaha waar dhalinyarta waa laga faa'iideystaa dhalinyartu waa aqoonta dalka iyo dadkaba waa cududii waa mindhihii dalka ma fahanti waxay ahayd in maaragtay chance la siiyo dhalinyarta chance weli aad u fiican la siiyo ماشينا وحويان حتى نوح بس كويس سامي لما يحس بس عكسنا أو بي وصل لي شيء سها بعد ما تسحر يا أو سوحينا يا أو مركي قلت كسر كل راعد يوحيا لفرب قف ذاك بالأمية قف تمير لبجة إمك محي هذي ذلك محي سومالي ستيت مدحونيال وحكي لا أفر بلوتش بجري أو أقبل وحيا لفرب تمير كسر ديني بجري خار كل راعي وتمثل كل توصل الحكومة بجري ذلك وين بابين وين اللي مركها إمك محوها مصطفى أكثر مؤر دجالة يا أيويمي وحبت كذي منو يمي دل وحويمي دجن وحبي أبويمي لكن دل كيسي ومدين واي مركا نوح إنه بحناهي leadership إنه خبيال مبهن نقدر ريعد له هو حوالي 8 مليون نقدر رئيس أقوى 6 مليون وحا إنه مبهنين يعني كلام عوليها نيو كلام حي هيدا مكاهيل يمبهني وحين أباهنا هاي leadership ويدلك وصوت دورتان ودلك ريوغادينيا وحوية سما تبعية أيان أباهنا ومبهنين نين مارك لو صوت دورتي قبيالة لو صوت دورتي ومبهنين من الدوني إن قبيالة لو صوت دورتي marka dad fara badan oo social media ba ka hadla jira oo magac oo waxa weeyaan qaar ay yihiin xirfadlayaal fanaaniina oo waxyaalo fara badan ku hadlay waxyaalo qaldan baa jira meeshan reebel baa ka tagay reebel baa sidan iyo waxaas ma fiicna social media iyo bulshada dhalinyarada waxaan la wadaagana waaniga wacyigelinaya dhalinyarta waxaan u sheegaya muxuu Somali State ama ururta qowmiyadda Ogaadeniya waxa uu majority-ga dalka waynu wada leenahay waxaan u baahanahay hadii in cagjar waxba u maamuli waayay leadership fiican oo ilaahay wax ka soo baxaba maxay ahayd gobolka tii wax ka soo baxo afdheer baa ka soo baxo liibaan baa ka soo baxo waxa uu meesha ka yimaad waxaan u baahanahay muxuu ahaa faafan baa ka soo baxo waxaan u baahanahay leadership fiican oo dalka iyo dadkaba hogaamiya baynu u baahanayno إنه مبهنين قبيلة أنا ريبل بمشي حكومي وح ماشان كتير وح ماشي كتاجن وأرمي هذا فربان ده كتاجن هنا عكسر قلال فربان بليه وحويان قفل بو السياسية إمك إثيوبيا حركة بقول يستيتني كو بيبيع عفر وعقو قرن أو الأنسحية لبضو كل يستيت بنكي قفل بو ذلك مو ولا شيء أو سياسية أما وحنا ليلي كرا أما رأيي سيبان كرا أما وحبري كرا وكهل ذكرى وحيد ذلك بقى وحيد دم وكهل ذكرى قوميدس مركي وهاي هوتيل سهل لو شري رقم بدني مارتي يسوق قار حسبي كمدا بيبي كمدا يكو مارتي aan kamid ahayn ba dadkii waxa lagu dhaqaaqay dil iyo xarig iyo waxba lagu dhaqaaqay waxaasina waa qalad weyn waa wax qalad ah oo wax aad iyo aad loogu xumaado sax ma aha anu san raayiyan aan aaminsanahay qalad weyn weeyaan ummadana waxay u baahan tahay ummadani caqli ka koraan in caqli ka baraarugaan inay noqdaan dad garanaya war maxaa inoo dan ah
maanta waxa jooga iyo berri iyo saa dambe xagee loo socdaa maxaa dan inoo ah inaynu ka hadalno weeyaan maaha inaan isku mashquulino ma aha muxuu ahaaye ree hebel baa maxay xukuma iyo ree hebel baa meesha xukuma iyo maxay baa kana yimid iyo maxay baa yimid ma aha ina cagjar wuu imanaya kumanaan baa imanaysa qof maxaa dalka iyo dadka war umusha iyo ilmaha maxaa dan u abaalidhaa dalkan yaa samabta bixinaya dalkan maxaa dan u ah qof leadership oo wanaagsan oo nadiifa oo dalka u khidmaynaya oo wax weeyaan dawladnimadii haybadnii dalka shacabkiisa kasbanaya shacabkiisa u danqanaya damiir leh muxuu ahaayey naxagi kara baynu u baahannahay uma baahanin inagu uma baahanin wax weeyaan kana ree hebel baa shalay meesha xukmayo ree hebel baa sidan ah uma baahnin iminka Mustafa Cagjar dawladda Itoobiya kaasatay inay dawladda Itoobiya kaasatay koob iyo tobankii ka horreeyo dhan dawladda Itoobiya kaasatay nin ay shacabkaas dadka soo doorteen oo ku yimid doorasho xor iyo xalaal ma jiro marka waxa weeyaan in aan maanta aynu ina Cagjar maanta rag baa meesha ka hadlaynin ba ka hadlaynin xulaa ra'iis aqbu maartay ina Cagjar maartay ba meesha haysto annaga ka badano annagu dameeraanu siin lahayno waa nin fanaan sheeganay waxa ku hadlay waxyaalaha waxa jira aan lagu hadlin baa jira oo shar darra ina Cagjar muxuu jarro haya jarro muxuu siinaya jarro oo kuugu daran yahay uleynaya weeyaan ina Cagjar jarro ba soo dooratay jarro waa ummadii hooyada watii halganka subax madin ma muxuu ina Cagjar uu jarro haya muxuu laakiin ra'iis aqbu haya ina Cagjar waxba uma hayo cid wuxuu hayaa ma jirto marka beentiina iskala